بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه بلدي سلام يا صحافة عيدا كقرن كجمهورية الصوماليلاند لما أنا خيارت هذا قصة من عيدا كقرن كعاد بنو سلام يا أنا قصة من هاي قلبتها وأنا قهر لنا والشد اللي قبل كسول هالكاس وأنا بريها قصة منين حالة قبل كون هالكا كاس وأنه حالة قبل كنا ويسكننا بتقولي مالما هو كلا دقني دو عادي أنا شيء يا ددوينها قبل كسول كنول الشعب كه إلا دبعتين أيوه لما كان دنو هني دبعتين أيام بين تلو شيء أيوه أنا شيء يا تلك يدك هو سوماليلاند بس عنو دي ذا كترنا يسا يدا أنا كترين دونته dadka shacabka la dhibaataynaya beenta loo sheegay nimanka danaha gaarka ah ay dhibaataynayaan waxaan u sheegayaan la idin dhibaatayn intii hore la idin dhibaateeyay yaan dib la idin dhibaatayn maalmahan soo socda ciidanka qaranku si buuxda gacanta ugu dhigi doona gobolka Sool insha Allah dadka shacabka ah ee la khalday dadka shacabka wadada Soomaaliland dad xun ma aha dad baa duulaan ku soo qaaday khawaariij Puntland al-shabaab dad buuraha ka soo degay oo karmaha ka soo dhacay ciidayihiin aan garanayn baa ku soo duulay dadka waa la dhibaateeyay waxaan jirin baa loogu sheekay artibayna nahay kanayna nahay alla wax ka jira ma jiraan annaga hartiya annaga dhul kale annaga u dhalanay annaga deegaanka yaga tahay annagana dawladka annagana ka ahaan doona dadka beenta loo sheegay lagu dhibaateeyay waxaan u sheegayaa hore la idin dhibaateeyay dib la idin dhibaateeyay qarankiina ku soo biiro kamid noqda dalkuna guud ahaan waa nabadgelyo waxaan kaloo halkan uga mahad celinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo mar kasta oo dadka meelaha ka yimaada dad yaha beel caalam baan kuwa meel kale ka yimaada ay yiraahdaan ciidanka qaranka laascaanood laga soo saaro ciidanka qaranka laascaanood waa kuwii u dhashay xagee loo saaray xageena la geenayaa marka la saaro annaga u dhalanay oo nin baa la gurigaaga ka baxo dhaaf gurigaaga waa may oo waxaan dhici karayn gurigeeygi baanu joognaa meel loo saaran anagu ma garanayno haddii cid la saarayo haddii beesha caalamku cid saarayso haddii dadka ay dawladaha deriska cid saarayaan dadka duulaanka ah ee meelaha kale Kenya guriyahoodii ay halkan ahayn hanaga saaro ka bixin nabadgelyaha ku bixin haddii nabadgelyo ku bixi waayaan ciidanka qaranku yaqaana sida uu isaga saaro dadka meelaha ka soo duulay taas waa inta waxaan kaloo halkan baaq uga dirayaa shacab weynaha gobolka Sool hadda gobolka Sool galbeedkiisu waa nabadgelyo dadkii ku soo qaxay baa degan dhibaato kama jirto dadka waa la caawiyaa hay'aduhu way yimaadaan nabadgelyo ballaaran baa ka jirta dad baa meelaha ka soo hadlo intay marba meel ay soo taagtaagan yiraahdaa halkaas aan goynaynaa been baad sheegaysaan baan leeyahay mana goyn kartaan mana iman kartaan haddaad isku daydaan wixii idinka raacay idinka ka mas'uula taana intaasaan kaga baxayaa waxaan kaloo halkan hambalyo uga dirayaa taliyaha ciidanka qaranka Ismaaciil Taani iyo taliyaha qaybta 7 iyo taliyaha qaybada kale ee iyaguna jiid hore ku sugan dhamaantood iyagana waa u hambalyeynaya sida wanaagsan ay noo hogaamiyaan ee ay noogu hogaamiyaan jamhuuriyadda Soomaaliland iyo sugidda amniga iyo xuduudaha sugistooda say noogu hogaamiyaan noogan iyagana aad baan ugu mahadnaqayaa intaasan ku soo koobaya wixii su'aalaha aad weydiinaysna waad weydiin kartaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقعي ويا سيمر بغاشة. إن بدن لحقنا قصنا جيد هراء. وحروا اللي رجلته عيدا كقرقة. إنه كل كمداتين. نبت التطبيقات. أيها صوب غوي. ترى ما هل لو حيراهن وحن شوقنا. هاي تلودية. وكله هاي أجارك. أدو ها. كورن. arrintaas waxba kama jiraan anigu waanigi kormeer ku tagay ilaa Adaybuur ilaa Dulshabeel ilaa Holhol waanigi kormeer ku tagay ina ma yaro dhalinyaro dadka deegaanka aba meelaha ay soo taagtaago sawiro beena ku galay isla markiiba waxay ku noqdeen goobahoodii oo iska tageen deegaanka iyo wadanka anaga ka xukuna anaga hawshiisa xaaladiisa gacanta ku hayna saacad kasta iyo waqti kasta waa ku sugannahay kormeer baan dhamaan ku soo marro ku soo kala bixinay wax dhibaato ka jiraan ma jiraan cid joogta ma jirto cid istaagi kartaa ma jirto ina ma yaro dhalinyaro dadka deegaanka dadka la khalday ah baa
sawirro beenbeena ku soo galay meelaha isla markiiba waxay ku noqdeen goobahoodii wax dhibaato ka jira deegaanka ma jiraan waa nabadgelyo dhammaan ciidanka qaranka gacanta ku haya annagana gacanta ku hayna waa nabadgelyo deegaankaasi marka wax dhibaato kama jiraan halkan waxaan u yar ku darayaa hal fariin oo aan u dirayo dadka shacabweynaha dhulbahante koox yaroo dan leh ama shakhsi dan leh baa dhibaataynaya dhibta intaa leeg iyo hagardaanimada intaa leeg iyo ilaa saacanood burburtana u geystay mana fahamsana wiil baa yiri gala dagaalka markuu yiri gala dagaalkana reerkiisina u ciiday dagaalka dib uga soo baxay gadamo fariista dadku ma oga dan uu leeyahay ma oga ujeedu leeyahay ma oga waxaan halkan uga cadaynayaa dadweynaha reer Soomaaliland iyo dadweynaha reer Soolba inuu isagu Soomaaliland yahay ujeedkiisuna yahay dadkan in yar oo u hogaansanta awaamiirtiisa inay ka soo hadho markaana soo doono uu ka yaro isticmaalo dadweynahana taasaan u cadaynaya cid isaga ka Soomaaliland darsani haddii idinku Soomaaliland ma yihiin been buu idin sheegaya isagaas ugu Soomaaliland darsan dadka waa muwaadin reer Soomaaliland cidii aasaastay ee dhistay ee dhismaheeda halkaas soo gaarsiiyay ka qayb qaadatay waxa weeye waa aabihii baa dhisay Soomaaliland tii ciidanka aabihii baa dhisay tii ka dambaysana adeerkii baa dhisay oo garaad Cabdiqaniya isaga Soomaaliland aasaasay isaga kaliifay dadka deegaankan iyaga oo markooda horeba dad Soomaaliland darino dad deegaankooda Soomaaliland yahay haddana inay Soomaaliland ka mid yihiin wax la qaybsadaan dawlad la leeyihiin aabihii iyo awowgii baa kasbay iyaga saxeexoodii baa yaala koodii baan anagu ilaa hadda ku shaqaynayna kuna shaqayn doonaa ilaa hadda meel lagu bedelay saxeexana anagu ma hayno markii gobolka soo la isugu meeysimadu imanayeen ciidankii soo dhaweeyay ee soo daayay ee ilaalinayay annaga ahaayeen ujeedkan uu ilaalinayna u soo dhaweynayna u soo daynayna gobolka u keenayna muu ahayn dadka inay dhibaateeyaan gobolka dumiyaan maatada qixiyaan ummadda laayar may ahayn waxay ahayd tabashada ay qabaan inay miiska wada hadalka soo fadhiistaan kala hadlaan Soomaaliland wixii ay ka tabanayaan waxa weeye adduunkana qofku bilaadankahi hadal wuxuu kugu deeqsin karo waaye xabad kugu deeqsin karo marka waxaan u sheegayaa ummadda nimankiina ismada sheeganaya waliba ismadoo dhan ma eedaysna ismadoo dhan eedu ma hayno ummadda hal shakhsi baa dhibaataynaya waxaan leenahay ummadda dhibaatada ka daa aakhirana cawaaqibkeeda wad heli doontaa haddaad ka deyn weydid waxaad ka heshidna waxba naga siin baan leenahay dadka iyagana waxaan leenahay war dhibaata inta ha idinku sugnaato assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh daawadayaal waaligoo yaasiin balbalaasha cabdiweli oo isaguna ku sugan warshada leydhka ee magaalada laascaanood waxaan leeyahay barnaamijka mid lamid ah nooli korata bye bye aad baa mahadsantiin